إن أهوال القيامة آخرة يدفت الله وحله بأدنيدة حقيقة قول ابن آدم كوسكوا فقسيني بين أوركرنا أما ومهم سنة يسكوا فقسيني وينو دمانيو آدني أن رميسنين مسألة دا سمجره dadkoo dhammi u geeriyoon doonaa geerida dabadeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay su'aalo hadda laynoo sii qadimay in layna weydiin doono su'aalo qof waliba uu hadda haysto jawaabteedana uu hadda qorayo markaad xabaasha gasho in malakulmowdku ku weydiin doono malakulmowdka maaha laba malagoo la isu soo diray inay ku weydiin doonaan man rabbuk waxaa la isweydiin doonaa dunida intaad joogtay yaa rabbi ku ahaa waa kuma nebigaagu diintaaduna waa tee waa saddex su'aalood hadda munaafiq iyo gaalba garan karaan iyo muslimba laakiin malaa'igtaasi oo ah malaa'ig muuqaalkoodu naxdin badan yahay bini aadamkuna markuu naxo wax ma xasuusto bini aadamku hadduu baqo oo uu naxo inta badan saani waxuma xasuusto waxau nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam su'aalaha saddexdaa marka la isweydiiyo qofkii dunida markuu joogay jawaabta fiican ka bixiyey aakhirana inuu jawaabtaa fiican bixin doono oo ilaahay baa u ballan qaaday inuu haleeshiin doono yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi laakhira ilaahay baa sugi doona qofka mu'minkiina rabbiya allah ii rabbiya نبي محمد عليه الصلاة والسلام بايا الرسول يا نبي إسلام كنا والدين تيدي سحب وجوابي دوره أما ضدكي منافقين تها مقالدها ها بيردنا ويقرن ويدوره دبيتنا والله تومي دونا والله قراعي دونا حباشا وركيدو ميرا laakiin waxaan jeclay waxaa ka dambeeya inaan maanta ka warramo qiyaamaha iyo dhibta jirta qiyaamaha maalinta qiyaame iyo burburka dunidan ku dhacaya iyo sida ilaahay dadka u soo bixin doono iyo xashriga iyo miisaanka iyo xisaabta iyo siraadka iyo jannada iyo naarta mawaaqif tiro badan weeyaan qiyaamaha iyo dhibta jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa in badan buu kaga warramo qof kasta oo muslim oo fahmi kara qur-aanku wuxuu sheegayaana wuxuu helayaa warkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa maalintaa ka warramaya oo xaqiiqo ka sheegaya kow ilaaha weyn baa wuxuu ku sifeeyey inay maalin weyntay maalintani alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuun ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ومال وين با إلهي كتل مامية يعني دادكو يقيسانين أما ملاينين أنهم مبعوثون إن لصابحين دونه ليوم عظيم مال وين إن لصابحين دونه مال انت وحكى له إلهي كسفيه سبحانه وتعالى مال علص ثقيل إنيتي إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إلهي وحولي كوان قال هذا ما وحي تعليهن تندق دكتا بدن لأدونك وحاني كتغ ينبا إلهي لي يوما ثقيلا مال علص وحكى له إلهي مال تاوكوت المامي مال أدق إنيتاي عصير فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ومال أدق با إلهي
oo gaalada marnaba aanu fududay idan maalintan rabbu samaawaati walardi oo sifaynaya wuxuu leeyahay waa maalin weyn waa maalin culus waa maalin adag ayaa ilaahay ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay sifaynayaa maalintan baqaha iyo cabsida bini aadamka haysta inuu wareeri doono wax badanba mararka qaarkood aanu kala garan doonin waxaa rabbi ku tilmaamayaa ta uur kale in ilmuhu ka soo dhici doono waxaa rabbi ku tilmaamayaa ta nuujinaysa inay ilmaha hilmaami doonto oo ilaabi doonto ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha annaas ittaquu rabbakum ina zalzalata saacati shay-un cadiim wardadow waa rabbigiin ka dhowrsada baa ilaahay leeyahy waayo ina zalzalata saacati shay-un cadiim qiyaama gilgilinkiisu waa wax weyn baa ilaahay yidhi yowma tarawnaha tadhalu kullu murdicatin cama ardacat watadacu kullu daati xamlin xamlaha watara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara walakina cadaab allahi shadiid waa maalin aad arkaysa baa ilaahay leeyahy tii nuujinaysay waxay nuujinaysay ay hilmaami doonto tii uurka lahayd uurku ay tuuri doonto dadku aad mooddo inay sakhraansan yihiin baa ilaahay leeyahy ilaahay baa wuxuu leeyahy watara annaasa sukaara waxaad arkaysaa dadka oo sukaara ah sakhraansan wamaa hum bisukaaraa ilaahay buu leeyahy mana aha waxay cabbeen dadku sakhraamay dad wax cabbay oo saa ku sakhraansan ma aha haddana waa la sakhraansan yihi oo maxaa sakhraamayey shiddat lhawl dhibta weynideeda walaakina cadaab allahi shadiid baa ilaah yidhi ilaahay cadaabkiisa ayaa adag saa daraaddeed baqe cabsi bini aadamku uu cabsanayo iyo baqaha maalintaa jooga waa kaa uu dadku sakhraamayaan waa ka uu nebi maxamed tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ambiyadu oo dadka hormoodkooda ahaa inay ku koobmi doonaan nafsi 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 tayda bes inay ku koobmi doonaan ilaa iyo marka u dambaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la soo gaadho ana laha uu yidhaahdo waa maalin ayuu nebigu ku tilmaamayaa baqa daraaddeed kuwa dulmiga dunida ku sameeya indhahoodu aanay libiqsanin ishu iskuma qabsoonto naxdin daraaddeed isha wuu kala hayaa walaa taxsabanna allaha gaafilan cama yacmalu aldaalimuun inamaa yu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi alabsaar ha u malayn baa ilaahay leeyahay inuu rabbi moogan yahay waxa ay daalimiintu samaynayaan ilaahay wuxuu leeyahy ma moogani ee waxaan dib ugu dhigay maalin indhuhu ay engegaan oo aanay libiqsanin baa ilaahay leeyahy ayaan abaalmarkooda dib ugu dhigay muhطiciina muqnicii ru'uusihim laa yartaddu ilayhim طarfuhum waafidatuhum hawaa walxaal ay yihiin baa ilaahay leeyahy kuwo muhطiciina musriciin kuwo degdegaya marka loo yeedho madaxa kor u taagaya ishoodu aanay dib u soo noqonaynin baa rabbi leeyahy caqlina aanu kuba jirin afidatuhum hawaa baa ilaahay leeyahy caqligu waa madhan yihi qalbigii wax lagu garan jiray waa madhan yahay baa rabbi ku tilmaamaya maalintan dhibta jirta ilaahay wuxuu leeyahy kuwa daalimiinta ah bini aadamku markuu naxo waxaynu naqaanaa in wadnuu xoog u shaqeeyo gariiro bugdhugtiisa aad magaa ka maqasho maalintaa halkan laabta ka dhugdhuglayn maayee dhugdhugtiisa xanjarada hunguriga halkan baa laga maqli doonaa buu nebigu ayuu qur-aanku tilmaamaya waandirhum yowma alaazifa id alquluubu lada alxanaajir uga dig maalinta dhow baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala id alquluubu lada alxanaajir markay qalbiyadu wadnuhu halkan ka dhugdhugleeyay kaadimiin iyagoo haddana saakitiin ah laa yatakalamuun qofna aanu hadlaynin aamusan ilaahay wuxuu ku sifaynayaa maalintan maalin indhaha iyo qalbigu midna aanu sugmaynin yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar quluubun yowmaidin waajifa absaaruha khaashica rabbi wuxuu leeyahay maalintan qalbiyadu waa waajif waa khaa'ifiin waa kuwa cabsanaya waa kuwa hanfariirsan oo baqaya waa kuwa argagaxsan indhahooduna waa khaashica waa kuwa dullaysan ayaa ilaahay ku tilmaamaya
indhahooda sifooyinka alla ka bixiyey mar waxaa la tilmaamay inay engegan yihiin oo aanay libiqsanaynin mar waxaa la tilmaamay inay kor eegayaan mar waxaa la tilmaamay oo aan ishoodu ku soo noqonaynin darafku soo noqonayn mar waxaa la tilmaamay inay kuwa dullaysan yihiin waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamaya waa maalin carruurta ay cirrowda baa ilaahay yidhi fakayfa tattaquun war saydan uga cabsan doontaan baa ilaahay leeyahay ilaahay cadaabkiisa in kafartum yowman yajcalu lwildaana shiiba fakayfa tattaquuna yowman yacni maalin saydan uga cabsanaysaan haddaa gaalowdaan maalintaa saa uga cabsan doontaan waa maalin ka yeesha carruurta shiiban ee ashyab kuwa cirroobay السماء منفطر به كان وعده مفعولا waxaa nusuusta qaar ku soo aroortay aadam inta la yidhaahdo ibcath bactha ahli الnaar kuwa naarta gelaya aadanow soo saar dabeetana waxaa la odhanayaa waxaad soo saartaa kunkii qofba 999 soo bixi markaasaa la yidhaahdaa bay carruurtu cirroobaysaa baa xadiisku tilmaamaya wakhtigaasi ayaa wakhtiga carruuri ay cirroobayso waa maalin aanu jiri doonin xidhiidhka qaraabanimo iyo tolnimo iyo walaalnimo iyo aabbannimo iyo hooyo iyo xidid iyo xigaaltoona waa maalin aanu jiri doonin ilahi wuxuu leeyay faidaa nufika fi الsuur falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun haddii suurka la afuufo marka suurka la afuufo baa ilaahay leeyay falaa ansaaba baynahum nasab ka dhaxeeyaa ma jiro wiil iyo walaaltoona ma jiraan iyo waxaad weheshataa toona walaa yatasaa'aluun baa ilaahay yidhi waxba laysweydiin maayo bal qofku naftiisa mooyaane cid kale danayn maayo waa maalinuu qofku ka carari doono dadka intii xigaalkii iyo xigta wahayda ugu dhoweyd walaal hooyo aabbo saaxiib kula dhalay faidaa jaa'at الsaakha yowma yafiru اlmar'u min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yugniih qiyaamuhu hadduu dhac baa ilaahay leeyihi waa maalinuu ka carari doono qofku walaalkii iyo hooyadii iyo aabbihii iyo tuuqabay iyo carruurtiisa uu ka carari doono waa maalin aanu cidnaba sokeeyo waraga uu carari doono waayo likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yugniih qof walba maantaa tiisa mashquulisay buu ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala beleda isaga haysataa ku filan cid wax kama kaafii kare isagaaba mashquula aayad kale ilaahay wuxuu leeyay yaa ayuha annaas ittaquu rabbakum wakhshaw yowman laa yajzii waalidun can waladih walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay'a ina wacda allahi xaq aayad kale ilaahay wuxuu leeyay wattaquu yowman laa tajzii nafsun can nafsin shay'a walaa yuqbalu minha shafaacatu walaa yu'khadu minha cadl walahum yunsaruun ilaahay wuxuu leeyay wardadoo war maalin ka dhowrsada ka cabsada maalin aan ku wax dhalay wuxuu dhalay waxba u qaban karin ku la dhalayna ciddii dhashay aanay waxba tari karin waa hooya ilaahay iyaboohiisu waa dhab baa ilahay leeyay inay maalintani imanayso waa dhabe u diyaargarow war ka dhowrsada maalin aan nafina naf waxu ahayn baa rabbi tilmaamaya subxaanahu wa tacaala ayuha alaaxiba maalintan dhibta taagan waxaa ilaahay ku sifaynayaa gaaladu haddii dhulka ay lahaan lahaayeen oo la yidhaahdo isku furta waa isku furan lahaayeen dhibta haysata maanta adduunka xoolaa waa la jeceliyey laakiin maalintaa cadaabka carar walow anna likulli nafsin dalamat maa fi lardi laftadad bihi baa ilaah yidhi naf kasta oo dulmi samaysay hadday leedahay dhulka waxa yaallaba laftadad bihi
واسكو فران لهيد با إلهي يدي بلا إلهي وحليه قالكو هدو دولكن يلبلاب كيبا ليه إسنا واسكو دي إلهي واسكو فرته والذين لم يستجيبوا له لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه دولك إياه إن كلون لك هدي الله سيو لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب بلا إلهي وحكوت المامية دولك مقيو ذهب ما هدولك وقوله يسقو ذهبه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به حتى هدوها يستبى إلهي ليه دولك مقيو ذهبه أو إذا هذا انتهى اللي قاضوا عنك ما انتهى اللي قدايو عيدك الدين ما يستبى إلهي ليه أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين واركواس عذاب كل البيلين عذاب وحلحوية وحقوبة عيدو هيليسي عيدو قرقارتنا يالا مايان سيدا وقيد بالنبي حلي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري كيالا يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به ما أنت قياما قال كلا كينبا إلهي ليه سيدو النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام ما أنت قياما قال كلا كينا مركزا وحلقوا هذا ورهدا دولك مقيو الذهب هيسان لهي ما أنت ما يسكفران لهي فيقول نعم هابوا إلى هذا ويسكفران لها فيقال له وحلقوا جوابه قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك هران كو ويديه وحنتا كفضد مركا دونيدا جوجتي دول مقيو الذهب يسيكمان ورنبا إلهي لي مركا دونيدا جوجتي بس إعابد بانكو يدي كاسو كفضد إن دول مقيو الذهب كنتو تي فضديد بان لغاواي وحبا عيد ما انت كان دغيسن ما يستاهل لي وحكا فضد باد بحين ويديه حالك قال إلهي سبحانه وتعالى وحكوت المامية dadka intuu u jeclaa xataa hadii la yiraahdo hal cadaabo oo adiga hal lagu sii daayeen oo aqbalayo yawaddu al-mujrimu law yaftadi min cadaabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fi al-ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha ladha wuxuu jecel yahay dambiiluhu baa Ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala maalinta cadaabkeeda inuu isku furto uu jeclaan lahaa xaaskiisii iyo walaalkii iyo tolkii iyo qabiilkii iyo wuxuu sheeganayo dhan iyo dhulka oo dhan haddii uu isku furan karayo waa isku furan lahaa si uu isagu u badbaado laakiin taasi ma jirta baa Ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala qodobka shanaad aynu tilmaamayno ee sheegaya maalintan dhibteedu intay leeg tahay waxaa ka mid ah maalinta dherarkeeda xataa haddaad cadaabka ka badbaaddo maalintan shiddadeeda haddaan alla ku badbaadin maalin fudud maaha waayo dee afkaynu ka leenahay waa maaline 50 kun oo sannadood bay u dhigantaa afku maynu ka leenahay waa maalin qiyaame laakiin maalintaasi xisaabta ay joogto ilaahay quraanka wuxuu leeyahay ta'ruju al-malaa'ikatu war-ruuhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sana آيات ساسال وتلمامية آيات كلنا إلهي وحكوت المامية محي 50,000 سنة مفسرين تبربا وحيد هذا مال انتاني وا كنت كونو سندود هدنا كنت كاكونا سندود مال مهيدو مال انتي بوا كون سندود مفسرين تبربا سايد هذا أيا كانت مال انتاني وا مال كدير مال مها عادي مال كماكم سندودا ويا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يبا إلهي لي إيقو حيوار كيان إني دودهي إيقو حيوار كيان محي إني فقتهي أنقنا وحنوارقنا با إلهي لي مالتن إني دودي قيامه ومالين دوبا إلهي لي لكن بني آدم كنت دمرك آخر الله وشكاية وحسرها وقت هذا يستا قيامه بريها المجلو وردك قيامها قوحو دعيا مالتين نفتك بحضه dadka kale qiyaamahooda waxba kaama gelin adiga su'aasha iyo cadaabta iyo jannada iyo wax waliba waxay ku bilaabmayaan maalinta naftu ka baxdo adigu sugi maysid dadka kale inta la soo halaagayo haddaba
maalintan dherarkeeda oo cadceeddu soo dhowday oo dadku dhididayaan oo qof waliba dembigiisa in laga dhididayo oo qofba dhididku meel u joogo oo isdixaam jiro oo cidhiidhi jiro oo kulayl jiro yani maalinta tani waa maalin hayru caadiya cadceeddu way dhowday markaa dadkoo dhammi way dhididayaan laakiin waxaad dhididaysaa calaa qadri dembik dembigaagu intuu leegaa kolba meeshu waa cidhiidhi oo dadkoo dhan baa wada tuban ilaahay cadaabkiisiina waa la keenay oo iyana dee waa jahannamo kaloo lagugu soo dhoweeyey oo cadceedda ka kulul ayaa iyana 70,000 malak iyagoo jiidayaan bay keeneen jahannamina waa joogtaa baqa waa jira dabeetana dunidiiba qofkan haddii uu suurad ka qaato wax yar bay la noqonaysaa dunida suuraddeedii ilaahay wuxuu leeyahy wayowma yaxshuruhum kaan lam yalbasuu ilaa saacatan min nahaar maalinta la soo xaadiriyo waxaad moodaabaa ilaahay leeyay dunidii inaanay joogin saacatan min nahaar mooyaane wax kale saacad maalina haddii lagu yidhaha war dunidii intaad joogtay kaannahum yowma yarawnahaa lam yalbasuu ilaa cashiyatan aw duxaaha waxaad moodaabaa ilaahay leeyay adduunkii dhammaay ay ku soo noolaayeen in yaroo barqaagali raabagali dambe wax yaroo ka mida inuu yahay ربي وحلي نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما كوجود تقدير كفي عن له أيها وحرنا يا ورملا الدنيا دينو كان من مال وعد ميت وحي يردم وحي لا نقني ينكي وفي عنابه وحلي محي ملا مال وعد ميت يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة مجرمين تنايل هي وحلي وحبي كل دارنا يعني ساعة waxaan ahayn inaanan joogin hal saac umaan dunida joognay bay leeyihin dhibtan maalintan dadka haysataa waxay ilowsiinaysaa sannadihii iyo waagii uu soo noolaayee dunidoo dhan dabeetana waxay ula muuqanaysaa inuu saacad noolaa saacad waxaan ahayn maanan noolayn bay leeyihin dee waa ka ilaahay ku tilmaamaya su-aashaba la weydiin doono kam labistum fi lardi cadada siniin war dunidii imse sannadood baad joogtay 50 60 70 maxaad joogtay قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي مالنا ما مالين بركيت بانو جوجنيه كوي واحترنا يبل هلا ويدي يبي لي إلهي با وحط المام يا لي دنا الله شدن بمرك الله يقا وحنفل ما يهينه إلا بثم إلا قليلا إن يرون با جوجتين لو أنكم كنتم تعلمون هذا وحقران إستان إن يرون با جوجتين با إلهي لي سبحانه وتعالى قيامها دبتي سو حقوق فلان adduunkana aynu joogno oo dhammi inuu isbeddeli doono adduunkaynu joogno oo dhammi hadday cir tahay hadday dayax tahay hadday cadceed tahay qorrax tahay hadduu dhul yahay hadduu buurayay hadduu bad yahay hadduu barri yahay hadduu bannaan yahay wuxuuba waa isbeddelayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa cirkanna in la duuduubi doono dhulkanna la qaban doono wamaa qadaru llaha xaqa qadrih waalardu jamiican qabdatuh yowma alqiyaama waassamaawaatu matwiyaatun biyamiinih subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun may weynaynin ilaahay weynidu xaqa u leeyay baa ilaahay leeyahy dhulku dhammaantii ilaahay baa qabanaya maalinta qiyaame cirkana waa la duuduubaya sida waraaqda loo duuduubaa loo duuduubi gebigiisaba marka hore wuu dildillaaci oo wuu jelci waxaan ku jiroo dhan baa soo daadan xidigaha iyo dayaxyada iyo waxaanoo dhan baa la tuuri kadibna sida xaashidaa loo duubisaa rabbi tilmaamaya yowma natwi الsamaaءa ka طayi الsijilli lilkutub kamaa bada'naa awala khalqi nuciiduh wacdan calayna inaa kunna faaciliin sida loo laalaabo waraaqda baanu u laalaabi doonnaa baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala waa ka nebigu tilmaamaya yaqbid allahu alarda yowma alqiyaama wayatwi الsamaaءa biyamiinih ثuma yaquulu ana almalik ayna almuluuk ilaahay baa dhulka qaban doona cirkana waa duuduubaya dabeetana wuxuu odhan doonaa ilaahay ana almalik anaa boqora meeya dadkii dunida boqorrada sheegan jiray
رواية صحيح مسلم كنا طاهر الصحيحين كي قوة الله صحيح مسلم تانا وحورن دونا أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرض بشماله يأخذهن بيده الأخرى أو يأخذهن بيده الأخرى رواية كلا سيد الإمام ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون إلهي بهو حورن دونا ورما يكوي بغرد الشيغاني ما يدوني ددد كيسوا وينيني ما يطغاد يكوي كبري عيدو الجواب ما جرته إلهي سبحانه وتعالى يسو جوابي دول كان ينوشوغنا إلهي وحلي فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة كلا إذا دكت الأرض دكا 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 وحلا إلى مركا وحلا طبه إلهي وحت الماما يا دول كان dhagxanta iyo dhul adag iyo didib iyo waxaa leh maalinta in la budlin doono la baabi'in doono isaga iyo buurihiisan iyo waxaan oo dhan yawma tarjufu al-ardu wal-jibaalu wa kaanat al-jibaalu kathiiban mahiila waa maalin dhulku uu gilgilmi doono zilzaala ka dhici doona idaa zulzilat al-ardu zilzaalaha dhulku markuu gariiro gariirkeedii baa ilaahay leeyahay iminka hal wadan marka gariir yari ka dhaco oo waxaan lagu qiyaasay rakhtarka la yiraahdo sabab buu gaaray baa la yiraahdaa magaaladiiba way dunto dhul gariir 7 ah imso socdaabaad u malaynaysaa matter of seconds ilbirqsiyo socda dhul gariir yar baa dhaco ilbirqsiyo socda dabeetana magaalooyin dhan baa baabaa maalintan qiyaamaha ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala kow buuraha waa la tumi doonaa dabeetana waxay noqon doonaan kathiiban mahiila alkathiib almahiil waxaa la yidhahdaa ciidda markaad in qaaddo inta kale soo dareerta soo yaacdo buurtii dhammayd ee adkayd marka la daqiijiyo waxay noqon doontaa sida meelahan tamuuxde markaad ciidda qaaddo ay ciidda kale ku soo daba cararto saasoo kale ay noqon doontaa hadhowba haddana la afuufi doonaa hadhowbay haddana tamuru mara saxaab halka daruurtu marto iyadoo boodha ayay mari doonaa buuruhu asliyan waxay ahaayeen awtaad ama rawaasida dhulka waxa xijinaya u diidaya inuu gilgilmo ayay buuruhu yihiin waa qotin hoos ugu jira scientifical islamka la sheego dhulkii buurihii rawaasida ahaa ee qotinka u ahaa marka iyagu baaba'aan maxaa soo hadhaya waxaa soo hadhaya dhulkii inuu gilgilmo markaa ilaa qotinadii baa ka go'ay inuu gilgilmo gilgilankaasi wuxuu noqonayaa wixii gudihiisa ku jiray oo dhan inuu dibadda u soo saaro idaa zulzilat al-ardu zilzaalaha wa akhrajat al-ardu athqaalaha wa qaala al-insaanu maa laha ilaahay markaa wuxuu leeyahay dhulkan waa la baabi'inayaa wa takuunu al-jibaalu kalcihn buuruhu waxay noqonayaan baa ilaahay leeyahay kalcihn suufka xoolaha dhogortooda marka la guro ee dabeetana la tumee la farsameeyo ee laga sameeyo suufkan maryaha laga tolo wuul suufkan marada laga tolo waa wax yaroo khafiifa oo haddaad tidhaahda hawada raacaya ilaahay wuxuu leeyahy watakuunu aljibaalu kalcihn buurihii waxay noqonayaan sida suufkaasi oo kale aayad kale ilaahay wuxuu leeyahy watakuunu aljibaalu kalcihni almanfuush cihnigii la afuufay ama la nafshiyey oo kalu soo baxaya buurihiina waxaa la yidhi waida aljibaalu suyirat marka buuraa la socodsiiyo wasuyirat aljibaalu fakaanat saraaba waida aljibaalu nusifat wayowma nusayiru aljibaala watara alarda baariza maalintaannu buuraha socodsiinna baa ilaahay leeyahy oo aad aragtaan dhulkoo siman baa ilaahay leeyahy dhulkoo baarisa wax qariyaa kuma yaalliin bannaan buu noqonayaa ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وحيك ويدين ينبا إله إليه بورها وحتى هذا ربي بابين يبورها ولا صيدين يا ولا ترتر يا دبتنا وحلقيتك يا بنان سمن يضاء أمل قدن يمل تاجن تونا عن لهي بدها إنه أركينه لما أنت دويس كدينيا لبا الشيء بقرآن كنت الماما وإذا البحار فجرت بدها مركا لقرحيه
iyo waida albixaaru sujirat badaha marka la huriyo kow culamadii hore waxay ku fasiri jireen tafjiirka in laysu faruuri doono biyaha macaan iyo biyaha kale oo badoo dham isku darsami doonto dabeetana biyuhu ay guban doonaan dee maantana waxaynu naqaanaa atamiska inta la qarxiyaa waxaa ka soo baxa maxay hubkan waaweyn ee atamigka la sheegaya wax la qarxinayo dee biyaha atamaday ka samaysayeen haddii ilaahay qarxiyo meeshuba way baaba'aysaa ilaahay wuxuu leeyahay markaasi subxaanahu wa tacaala waida albixaaru fujirat buuraha marka badaha marka la qarxiyo ama badaha marka la holciyo haddii ase nuclear loo qarxiyo dee baddu dabbay isu beddelaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa baddaasina inaanay sideedii ahaanaynin waxaa ilaahay tilmaamayaa cirkan quruxda badan leh midabkan leh saatani inaanu maantaasaa ahaanaynin yowma tamuuru asamaa'u mawra maalintay samadu socoto ida asamaa'u infatarat ida asamaa'u inshaqat waadinat lirabbiha waxuqat maalintay cadceeddu samadu ay dildillaacda baa ilaahay tilmaamaya wainshaqat الsamaa'u fahiya yowmaidin waahiya waa dildillaacaysaa baa ilaahay leeyahay samadu dabeetana waxay noqonaysaa waahiya ay daciifa mid liidata oo jilicsan bay noqonaysaa dildillaac qura maahae xataa midabkaa isbeddelaya samadan aynu markaynu eegno buluuga ah midabkaasi leh hadhow ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inay casuus noqon doonto oo markaa silfarka la shiilo la dhalaaliyo sideedoo kale inay noqon doonto midabba isbeddela inay noqon doonto faida inshaqat الsamaa'u fakaanat wirdatan kaddihaan baa ilaahay ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala waxay culammada badh ku fasiraan inay farasulwirdi oo kale noqon doonto farasulwirdigu waxay idhahdaan waa flower wakhtina asfar noqda wakhtina casaan noqda wakhtina yacni midabadiisaa isbeddela cadceedda kuleylka qabowgu markuu ku dhaco saasoo kaley samadu noqon doontaa oo wardatan kaddihaan bay noqon doontaa alwaan ayay soo bixi doontaa waxaa la tilmaamayaa dhibta dhici doonta cadceeddaa arkaysaa in la duuduubi doono gebigeedba ifkeeduna tegi doono dayaxa in la demin doono xidigaha in la daadin doono la bakhtiin doono ida shamsu kuwirat waida annujuumu nkadarat waida aljibaalu suyirat waxaa ilaahay tilmaamayaa xoolaha kuwii loogu jeclaa in laga dhaqaaqi doono ida alcishaar geelii 10 bilood ahaa 13 buu geelu ku dhalaa markuu soo dhowaaday weeyaan waa markay geeljuru jecel yihiin la ilaaliyo neefka inaan xoolana cidi danaynayna ka dhaqaaqi doonaan waxaa ilaahay tilmaamayaa saddexdan suuradood buu nebigu sheegay ida asamaa'u inshaqat ida asamaa'u infatarat iyo ida ashamsu kuwirat ninkii raba inuu qiyaamaha ogaada saddexdaa akhriya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam saddexda tani waxay kaa siinayaan kownkan iyo siduu u burburayo suura kaamila sawir dhan muuqaal cajab qaba ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamaya faidaa bariqa albasar wakhasafa alqamar ilaahay wuxuu tilmaamaya ida alkawaakibu intaharat waida annujuumu nkadarat waa cirkaa iyo waxaa jira oo dhammi waa dumayaan malaa'igtii ku maqnaydna waa soo daadegaysaa noloshoo dhammina waa isbeddelaysaa dadkuna 3 qaybood buu noqon doonaa gaalo oo ah kafaradii dhabta ahayd iyo munaafiqiintuna dee aakhiro waa gaalo warkoodu wuu caddaanayaa ileene iyo dadkii muwaxidiinta laakiin cisyaanka la yimi iyo dadkii adqiyada ahaa ee saalixiinta waaweyn ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa gaaleed xaalkooda wuxuu ku tilmaamayaa yowma yakhrujuuna min alajdaati siraacan kaannahum ilaa nusubin yuufiduun khaashicatan absaaruhum tarhaquhum dilla dalika alyowmu aladii kaanuu yuucaduun waxaad xustaa maalin baa ilaahay leeyahay ka soo bixi doonaan xabaalaha iyagoo degdegaya marka loo yeedho yowma yadcu daaci ilaa shayin nukur marka daacigaasi yeedho yowma yunaadi almunaadi min makaan markuu ka dhawaaqee loo yeedho waxay u soo bixi doonaan iyagoo degdegaya
kaannahum ilaa nusubin yuufiduun baa ilaahay leeyay iyadoo aad mooddo ansaabtoodii iyo wixii ay caabudi jireen siday ugu maqiiqnaan jireen sidii oo meel sanama looga yeedhay ayay u carari doonaan baa ilaahay leeyay iyadoo indhahoodu khushuucsan yihiin khaashicatan absaaruhum taraquhum dilla dhammaantood mugdi daboolay oo de waa ka aayaad kale ilaahay ku tilmaamaya kaannamaa ughshiyat wujuuhum qiطcan min alleyli mudlima siday u eg yihiin habeenka gobol ka mid aad mooddaa inta la gooyey wejiga laga saaray baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala waxaa alle ku tilmaamayaa dadka kan fatawalla canhum yowma yadcu ddaaci ilaa shayin nukur khushacan absaaruhum yakhrujuuna min